kulan wacan oo wanaagsan idin ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah xaaladihii ugu dambeeyay ee galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo dagaalada faraha lagaga gurtay ee u dhaxeeya Soomaalida iyo Cafarta ee marka ka dambeysay deegaano hor leh ku sii fidaya ciidanka Cafarta ayaa hub aad u culus ka helay dowladda federaalka ee Itoobiya ayadoo hub aad u tiro badan oo hubkii lagu dagaalamay xoogga Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya loo soo daabulay gobolka Cafarta ciidanka Cafarta la arkayo ayagoo ku qalabeysan hubka aadka u culus ee militariga dalka Itoobiya ciidamada Soomaalida ayaa sheegay inay deegaanada gabagaba yihiin ka maqan deegaanka Soomaalida ayadoo garbaciisa iyo deegaano aad u balaaran gabi ahaanba ay go'doon galeen madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo madaxweynaha deegaanka Cafarta ayaa hanjabaado culus hawada soo mariyay iyadoo dowladda deegaanka Soomaalida ay wacad ku martay wada hadal dambeeyna lala galay maamulka Cafarta gabi ahaanna ay xuduudka soo xidhi doonto galbeedka City ee dowladda deegaanka Soomaalida iyadoo shacabka galbeedka City ay si weyn u soo dhaweeyeen dhawaaqa ka soo yeedhay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay marnana la galeen wada hadal dowladda Itoobiya ayadoo dalalka loo yaqaan G7 ay soo jeediyeen dowladda Soomaaliya iyo dalka Itoobiya inay miiska wada hadalka ku soo laabtaan khilaafka weyn ee labada dal soo dhaxgalayna miiska wada hadalka lagu xalliyo sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa midowga Afrika u soo jeedisay qaramada midoobay si degdeg ah ciidamada dalka Itoobiya looga saaro gudaha Soomaaliya gabi ahaan mandate-kooda albaabada loo laabo madaxweynihii hore maamulka Somaliland Daahir Riyaale ayaa dhawaan lacag aad u tiro badan uga qaaday magaalada Hargeysa una sheegay inuu ku dhawax dhigayo dekada lagu haye ayaa shacabka deegaankaasi gabi ahaanba gaashaanka u daruureen iyagoo sheegay inayna marnana suurtagal ahayn in dekadaasi la dhiso Itoobiyana ayna ka dhamaanayn dekadaasi dhismaheeda Itoobiyana ay lug weyn ku leedahay oo saacadihii la soo dhaafay ee warbaahintu si weyn u qaaday dhigaysay dhagax dhiga uu Muuse Biixi ku dhawaaqay inuu lagu hayo dhisayo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Gooni oo soo dhawow wali xaaladu aad bay u cakirantahay galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida warbaahinta Itoobiya iyo dalka dibadiisaba ee si weyn ay isha u hayaan dagaalkan ee maarta usbuucii koobaad dhamaaday ee 10 bari sii galaya ee khasaaraha aadka u badan ee dhimashada iyo dhaawaca iyo barakaca dhaliyay ee welina maarta xaaladu ay tahay ay mid fare ka qodnayn ay tahay ciidanka Soomaalidu ilaa shalay ilaa maanta oo la joogo dagaalku si xawli ayuu halkaas uga socdaa ciidamada Soomaalidu waxay sheegeen weerarka Cafarta iyo militariga Itoobiya sida wada jirka ay soo qaadeen ee duqeymaha xagga sare ay ciidanka militariga Itoobiya ka garaacay kii lugtaba ayna taaka kamid ah ayna ka bixin dhulkiina iyo deegaano horlan ay dib u qabsadeen Soomaalidu soo lama dhigi karo gooniyow guulahan waa kuwa maanta ku dayasho mudan oo Itoobiya waxa jiray inay Soomaalidu tahay maanta wali awood jirtay inay tahay sidoo ma santahay horta dagaalada halkaas ka socdo waxa leeyahay wajigi ugu xumaa ay sii galayaan dhowr magaalo isku dayeen Cafarta inay soo war dib u qabsato oo ay ku fashilmeen waxaan warku sheegan dagaalku inuu xoogaystay waliba roob intuu yimid roobka dhexda lagu dagaalamay oo buuraha iyo la arkay dhiiqada iyadoo ciidamadu dhex socdaan xabad dhimbalaha kaliya laga dhex arkay oo inta kale ay mugdi noqotay sidaas daraadeed Cafartii mar kale ayaa la jabiyay dhowr tuulay soo weerareen oo ku fashilmeen inay qabsadaan waxa marka iyadoo la sii ariyay gudaha u galeen Itoobiyaanka Abiy Ahmed waxa la sheegay inuu Soomaalida in Allah amar ku bixiyay madafiicna waxa lagu soo garaacay dowladda deegaanka Soomaalida oo waxa soo garaacay dowladda Itoobiya marka wuxuu yiri waa in la laayaa Soomaalida meel baa ku aragtaan way xoogaysteen intaas oo markii la dagaalo way laaban jireen waana laga saari jiray meesha hadda laakiin wuxuu yiri in way bixlaayeen oo Soomaalida soo jeesteen sidaas daraadeed dowladda Itoobiya ciidankeeda ay amar siiyay wuxuuna la saftar leeyahay nimanka Cafarta iyo oromada halkaas ku sugan ayuu yiri waa in la taageero oo la caawiyo marka dagaalkan inuu dagaal weyn noqon doono oo Soomaaliya Itoobiya noqon doono xaaladdu si weyn doonto waa loo jeedaa Soomaalida la badadka siyaala oo dad lagu haw dhigay weyn ogyihiin in dhibaatadan oo Abiy Ahmed ka dambeeyo laakiin meesha isla gaarto ayaa la arki doonaa dagaalkan oo dagaal si weyn ah mar ka dambeeso ayadoo roob shalay imaanta roob ay socdaan ayadoo dagaalkuna socday oo ciidamadu ay markaas diidanayeen inay dib ugu baxaan deegaanadii ay ku sugnaayeen waa dhul buuraley ah waa dhul maxalli banaan meelaha qaarkood waxa ay roob socda ay ciidamadu arkaysa ay roob ku da'ayo inay hubkooda ay wataan marka meeshan waxa malaysa shidow in la isku aruursanayo dagaalkan uu sii kordhayo shalay maanta inuu saayiday oo malaysa dagaalku uu sii weynaado shidow waad mahadsantahay Gooniyow ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed horay ayaa looga hadiyay waqtigii Cabdi Ilay xukuumaddiisu ay dhacaysay ama Cabdi Ilay gacanta lagu dhigay asagoo lagu hubsaday
ayaa hadal ka soo yeedhay wasaaraha waxa jiray iyo kan maanta ka soo yeedhay oo maartay isku meel imanaya wasaaraha Itoobiya wuxuu yiri haddaan mar aan ka guuleysanay ciidanka liiga booliska dowladda Soomaalida una cabdi una soo dagaal gelinin ayagoo ognahay buu yiri awood inay tahay aan dhayalsan karin Itoobiya khatar ku ah laakiin wuxuu yiri madaxa laga dilay haddaan madaxa ugu sareeyo cabdi ilayaha iyo sargaalka ugu sareeyay liiga booliska labadaba aan hor dhaafinay wuxuu yiri waa guul weyn oo xukunkayga u soo hoyatay wiil soo lama dhigi karo barnaamijkii uu abi ka aaminsanaa in liiga booliskii maartay ay cadow yihiin inuu wali halkii kala dagaalamayo oo hadda laga yaabo balaleeyahay dagaalku inuu noqdo Itoobiya ma dagaal toos soo gasho intii ayadoo magaca farta lagu soconayo in ilaaba oo magaca farta ayadoo lagu shaqeynayo in la jigjiga la joojin waayo Soomaalida dagaal xawla halkaas ka bilowdo saas oo tahay Abiy Ahmed markii soo hadda isku fikro aaminsan yahay wuxuuna aaminsan yahay Soomaalida dagaal la geliyo maadaama deegaanada kale ay holcayaan afartii amxaaradii iyo nimankii yiraahdo dawladda gacmo isku jiraan Tigreega iyo amxaaradii gacmo isku jiraan waxa gacmo isku jira oola iyo amxaaradii goono dagaalamay waxaas oo dhan wuxuu rabaa marka in dawladda deegaanka Soomaalidana kulaylka oo gaaro dagaalka lagu wado in Itoobiya si ula soo rabaa oo marka xaaladda halkaas oo adkaato oo yiraahdo dadka ugu fudud dhul laga qabsan karo ama laga saaran karo Soomaalida qorshahan waa qorshe fog sida hore u sheegnay oo Itoobiyaanku ay wataan waliba Abiy Ahmed qorshooyin badan oo wataa oramada qorshaha dawladda kaliya kuma ka day ilaa koonfurta iyo waqooyigaba waa uu soconayaan qorshaha Itoobiya inuu ku yahay oo Itoobiya inuu macnaha lagu talagalay markii Itoobiya laga talaabana Soomaaliya Djibouti la socda qorshaha qorshe weyn oo loo socdo meel kasta Soomaaliya joogto bad iyo bari meesha joogaan Soomaalida loo socda marka qorshahan Abiy Ahmed degsaday mar meel ay ka bilaabo marka jahwareerisi u noqoto ila mareyso mar meel ka bilaabo marka hadda Soomaalida way soo jeesatay dagaalka si weyn oo ugu talagalay in la dagaalamaan Abiy Ahmed iyo wixii uu keenaba dagaalka si toos in loo galo ay noqonaysaa hadhow waxay noqon doontaa in Soomaalida ku sugan maxalliga no eastern Soomaalida ku sugan Soomaaliya gudaheeda ilaa iyo Djibouti inay isku yimaadaan oo hadhow Soomaalida loo gurmado ay noqonaysaa sababta xaaladda meesha ku socota meel halis ah halkii Itoobiya marka laga fashilan lahaa laga burburin lahaa waa dawladda deegaanka Soomaalida shido aad baad u mahadsantahay goono waxaan rajaynayaa Soomaalida maartay Soomaalida Itoobiya ama Soomaali galbeed dhulkaas ku dhaqan ee weerarka xooggan ku soconayo in ay si weyn ay u fahmi doonaan cadawtinimada dhabta ee loo hayo iyo duulaanka lagu doonayo dhulkooda in la qabsado Itoobiya marnana raali ka noqon mayso kilalka shanaad oo dhulkiisa difaacanaya xuduudihiisa difaacanaya in ay u gudbaan koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga in ay u suuro galaan u yihiin laakiin waa in marka hore kilalka shanaad la jilciyo ciidamadoodana la baabiyo siyaasad ahaan loo baabiyo ayna noqoto meel maartay buunta ah oo looga talaabo koonfurta iyo waqooyiga laakiin waxaad moodaa kilalka shanaad inay wali nool yihiin madaxweynaha deegaanka Soomaalidana inay wali ku jirto maartay muwaadinimo iyo Soomaalinimo iyo inuu maartay dhulkiisa uu difaacan karo arkay xoog ormo ah oo dhahaya maartay Soomaalidu isma dul saaro in cagta deegaan buu leeyahay waa inuu ciidankiisa kala baxa galbeedka city dhulkan ciisa askar ciisi canfarna way wada dhashan waa khalad inay ciidamada liiga booliska deegaanka Soomaalidu ay ka dagaalamaan galbeedka city waa in dawladda Itoobiya si toos ah u soo farageliso loona sheego madaxweynaha deegaanka Soomaalida deegaankiisu meeshu yahay iyadoo tahay qayb iyo xukun on ciisana wax wanaaga loo haynin Soomaalida kale wax wanaaga loo haynin laakiin guushu waxay ku dhalan kartaa midnimo iyo wada jir iyo dhulkan dhul Soomaaliyeed yahay Soomaalida xuduudkooduna ay tahay mid ugu dambaysa ee maartay galbeedka city iyo dhulkan maartay ay hadda Oromada deesla marna aan la aqbalin kala qaybinta ay Itoobiyaanku ay ku dhawaaqayaan ay ugu baaqayaan maartay Itoobiyaanka kaleete inay Soomaalidu ay khaldan tahay dagaalkana lagu soo biro ciidamada liiga booliska dawladda deegaanka Soomaalidu wali guulo waaweyn ay dagaalka ay ku hogaaminayaan afartana hadda 3 jeer oo dagaalku dhacay labada maalin toos u socday waa ka 100 kilomitir dhulka weeraraya afarta laga xoreeyay oo naweyn dhulkii labada degme ee aad u kala fog waa maanta Dhoonyar iyo Daymeed iyo deegaanada qabalayaashii tuulooyinka ku hareeraysan oo dhan waa kii laga xoreeyay ee garbaciisana koonfurta iyo waqooyiga ay ciidanka liiga booliska degan garbaciisa waxaan soo nahay inay tahay deegaanada ugu fog ee galbeedka sida meesha xuduudka ee dhulka ugu dambeeyay lagu muransanaa inay tahay meesha hadda dagaalku halkaas ka socdo halkaas ciidamada Soomaalida wali guulo weyn ay ku tageen deegaano horle ay isku sii balaaneen waxa la leeyahay militariga Itoobiya ayaa fariismadii hore degan ka guuray markuu arkay in colaadda cusbaatay ka baqay inay ayagu isbitaal soo galo xariiq gudaha deegaanka afarta dib ugu durkay laakiin madaafiic ba xagga ka imanaysa oo ku soo dhacaysa xariyaha maartay liiga booliska iyo godadka ay qoteen ee defense ka jiraan madaafiic soo dhacaysa ayagoo la leeyahay afarta ayaa soo tuursay laakiin suurtagal ma hub 70 kilomitir ka soo dhacaya oo maartay in ciidan liiga booliska ay haysanin waa la ogsoon yahay ciidamada dalka Itoobiya liiga booliska qoriga ugu weyn ee wataan waa qoriga dhashiikaha loo yaqaano oo waliba ku badnaan oo guutay laakiin laga yaabo in laba xabay ka haysato
وشرعي إثيوبيا ودولة إثيوبيا أي كويل على سوق كليها مركز سكستو يعتبر حالة قلبات كسيتي مربى مركز كذا بيسا وكسي دريسا دكاي وقوي إثيوبيا هدانا ولد قالوا وكسو على قبل كتكراي dhulkii ay ku haysteen deegaanka axmaarada wali weerarkiisii waayaan ayaga axmaaraduna maartay dagaal culus ayaa halkaas ku dhaxmaraya ciidanka Tigreega ayaana wali guulo sheeganaya meesha qoomiyadda axmaaradu ay ku qayla dhaartagayso in dhulkooda la qabsaday dawladda Itoobiya ay maqraati ka tahay daaqada ka fiirsanayso waxaana uu suurtagal ah in Itoobiya ay god weyn ku rido doonto Tigreeguna ay hadhow u fududaan doonto bay dhahay in difaac axmaarada soo jabsadaan adsaw inay soo galaan aan wax ka hor istaagi doona una jiri doon dawladda Itoobiya lagu baaqay inay dagaalka soo gasho deegaanka axmaarada difaacdo waa sida ay madaxda deegaanka anfaartu deegaanka axmaarada ay ku soo gudbanayaan dhawaaqooda والمعزين داود يا محمد جينا دكا يو وقويجا الصومالية وقويجا الصومالية وحنو جين دكتور لو هاي المصبيح عبد الوهاب كل واقع إن لا بستيو أيضا عرفت أسي أي مدمدو وين أي برشة أي أحد يكتب مدرسة الصومالية أي كم وجه ولا عضب ولا جنب بقي إن الدولة إثيوبيا أي لقاها سومر سنس ما مكسومنا دكتور نهار راسي بالله سي إثيوبيا مركب قرشة صورة ما يستطيع دكتور ولا سنة وقت ما ده كان أي برنامج كذا يعني ما تا كسي جان قادم لكن أيضا لو إن ما تا محبين هو رمام كالصومالية ومصبح عبد العقب بدل ودي كذا رايح حق تديك أيام جبيها كوري الأساس خلاف ما كذا شيء حوشنا عكا يسوس جبيها أنا بعشر ولا ورث داك برامج محاسبين ولا سعودي جوني ومحكوين جوني ومحكود دم يلوي دكتور اللي زيه يعني هرتا شلي ما دراد waxaan ka sheegnay in ninka lagu magacaabo Daariyalka inuu madaxweynaha hore Soomaaliland uu $1 milyan qaado isla markaana sheegay degdeg loo hayay in la dhigi doono sidaas daraadeed dadka shacabka iyo odayaashiina waddanada la kulmay ugu dambeyn dadku waxay istuseen in qorshahan Itoobiya ka dambayso musabiixina uu soo gambaday Daariyalka maadaama uu ka soo jeedo deegaanada Awdal State saas daraadeed waxay go'aan ku gaareen inay suurtagal ahayn in hadda la dhiso dekedan haddii loo baahdo shacabku ayaga iskood lacag isaga ururin doonaan oo ayagu ay dhisan doonaan ganacsatada dal iyo dibadba joogteen ay kaashan doonaan saas daraadeed inaan la yeelin ayna aqbalin in dekeda halkaas la dhiso Daariyalka soo artiska xun ay lacagta la soo laabtay waxaana la sheegay in gudaha maxaa la yiraahdaa magaalada Hargeysa kula laabtay fashil ayaan halkaas ka soo wajahay dadkuna waxay dareensan yihiin in dekeda la dhisay aysan jirin qorshahaas in Itoobiya soo maleegtay markii dekeda la dhisay ayadoo diyaarsan in hadhow dadka la kala eriyo in la rabo qorshahaas ayaa marka meesha soo galay waana cadaatay arrintaasi in wana lagu kala boodashido waa maasantahay gooniyow dowladda federaalka ee Soomaaliya dalalka loo yaqaan G7 ka ayaa u soo jeediyay in ayaga Itoobiya la dhaxadiyo miiska wada hadalkana ay ku soo laabato dowladda Soomaaliya maxaa ku ognahay dhawaaqa ka soo yeeray dalalka G7 iyo dowladda Soomaaliya waxay ku jawaabtay G7 shalay waxay amaanayeen heshiiska musabiixi oo markaasi oo la galay Itoobiya ay diidanayeen oo waxay dhahayeen waa qalad waxayna amaanayeen dowladda Soomaaliya sida ula macaamishay dadkaasi Itoobiyaanka ee markaas dhaqan xumo sameeyay maantana waxay bilaabeen in ay markaas yiraahdaan Itoobiya idinka wada hadal ku dhameystay arrintiina wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi oo u jawaabana waxa sheegay Itoobiya aan la leeshin doonin aan la hadli doonin misna aan la fiirsan doonin ilaa ay ka laabtaan heshiiska badda saylac iyo lugaye markaas ay u banaan tahay in la wada fariisto go'aan la gaaro runtana la isku sheego laakiin wixii intaas ka horeyso dowladda Soomaaliya marnaba inaysan hadlaynin ayuu sheegay waana warqadan asaga la soo gaarsiiyay maadaama wasiirka arrimaha dibadda ee beesha caalamka la macaamilay asagoo yahay wuxuuna cadeyntaas arrintaas si toos ugu sheegay in warbaahinta in Itoobiya iyo anagu halkii ay kala joognaa yiri mana dhici doonto inaan soo fariisano ilaa ay markaas muujiyaan qaladka ay galeen halgeelna ka bixin shido waa maasantahay gooniyow sidoo kale dowladda Soomaaliya wali waxay wadaa duulaan aad u ballaaran oo ku doonayso inay gabi ahaanba kaga takhalusto xoogga Soomaaliya ka dagaalama ee dhibaatada ku haya dalka ee maartay dowladnimada Soomaaliya si weyn u raadiyay iyadoo ciidamo badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sii qulqulayaan gobolada dhexe oo ah deegaanada hadda ay dowladda Soomaaliya ay si weyn diiradda ugu hayso in gabi ahaanba xeedadaha lagu siibo xooggan maartay khawaristaha ee gabi ahaanba dalka Soomaaliya la degay gooniyow dowladda Soomaaliya waxay ka codsatay baa la yiri midowga Afrika iyo urur goboleedka iyo qaramada guud ahaanba in ciidamada Itoobiya dib u soo sameeyo joogitaankooda Soomaaliya maxaan ku ognahay hadalka dowladda Soomaaliya ka soo yeedhay dowladda Soomaaliya waxay la kulantaa leeyahay saraakiil ka socdo ADMIS ama midowga Afrika kuwaas ay ku kulmeen magaalada Muqdisho taliyaasha u sareeya ciidamada iyo hay'adaha amniga oo Amisonka ayuu ka codsaday in dowladda federaalka Soomaaliya soo jeedisay in nimanka la yiraahdo ADMIS gaar ahaan kuwa Itoobiya in laga saaro magaalada gudaha magaalooyinka Soomaaliya sidaas daraadeedna ay ku qanacsaneen qaabkii wax wada Itoobiya maadaama dagaal uu kala dhaxay duulaan ay soo wado ciidamada ADMIS ka tirsanaa iyo kuwa kale la kala garan laayay oo mar walba ciidamada isaga soo gurayaan waxay codsadeen in ciidamada ugu horeeya ee ADMIS dhimista lagu sameyn doono inay noqdaan ciidamada Itoobiya inay ka baxaan Soomaaliya
oo wax ay arrintaas u taalo aysan jirin hadday shabaab qabsanayso iyo haddaysan qabsanaynin iyo haddii Soomaalida ay dhexis dagaalaysana ay soconaysana wax shaqo aysan ku lahayn marka waxay codsadeen ADMIS maadaama ciidamada 2,000 u dhimayso in ciidamada 3,000 ka badan ay joogo Baydhabo meelahan in laga saaro gudaha Soomaaliya sidaas daraadeed xuduudkooda ku laabtaan wixii hadda ka dambeeyay ayaga markaas dagaalka kala dhaxeeyay ay markaas u diyaar garoobi doonaan marka waxa dareemi kartaa sidoo in Soomaalidu ay soo jeesatay Ethiopia nacaybkina uu ku weynaaday haddana ay si toos u sheegayaan inay suuragal ahayn in gudaha Soomaaliya isku sugnaado Ethiopia ku sugnaadaan ومعتن يا جوني داود يا لبي قروات معتنتين برامج كشيشة قرية ميل فوقنا جارسيا حالها جيس كأفريقيا مرة قدم يسوي وين أي سوسو تريان deegaanka Soomaalida iyo cafartu markale ayaa buraashadaha la soo dhaansaday hubka aad ka u culus noocyadiisa kala duwan ayaa laga maqlayaa guud ahaanba galbeedka city ee dawladda deegaanka Soomaalida halkaas oo cafartu weerar aan ku hayso marba marka ka dambeeyay ay ciidanka cafartu ay duulaankooda si balaaranayaan meesha Soomaalidu ay ugu yaraan 6 jiha dhufis ka xidhatay ciidanka cafartuna ay guul darro weyn hogaaminayaan xogaha ayaa sheegay in ciidanka cafarta meedad iyo dhaawacyo aad u tiro badan ay ka caraleen geedaha hoostoodana ay daadsan yihiin waqooyiga Itoobiya xaaladdu wali way sii adag tahay ciidanka Tigray ayaa wali xawaaro ku socda axmaaraduna qayladaan aad u ballaaran ayay diraysaa iyadoo u diraysa beesha caalamka iyo dawladda Itoobiya in Tigray ay noqon doonaan kuwa ku xasilo ama ku nagaada dhulka axmaarada laakiin ujeedadoodu ay tahay inay xuduudka ay tagaan Suudaan oo dhulka Humeera magaalada loo yaqaan dekada qalalan ah kadibna ay dhulka ay u jahaysan doonaan sidii guud ahaan dalka Itoobiya u qabsan lahayd ayagoo hub culus gacantooda u galayo ciidanka faanuunka military ka furteen oo Tigray si xawli ah uu gacanta u galay dawladda Soomaaliya gabi ahaanba waxay qaadacday dhawaaq ka soo yeeray dalka G7 ka loo yaqaano oo lagu sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya wada fadhiistaan arrintan Soomaaliya gaashaanka ay u daruurtay sidoo kale ciidamada Itoobiya ayaa la codsanayaa inay gabi ahaanba ka baxaan Soomaaliya waa dhawaaq ka soo yeeray dawladda Soomaaliya iyadoo saraakiil ADMIS ka socota ay dawladda Soomaaliya la kulanto una sheegtay in wareegga koowaad ciidamada Itoobiya gabi ahaanba dalka Soomaaliya laga saaro marba marka ka dambaysa khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa cirkaas ku sii shareeray Muuse Biixi Cabdi ayaa laga hor istaagay lug haye uu doonayay inuu dekadii halkaas ka dhiso ayadoo dadka deegaanku ay ka dhaxarkeen in Itoobiya soo dhaxmarayso ama Muuse Biixi Cabdi ay dawladda Itoobiya si weyn uga dhaxalayso ayna tahay dekada waxa dhisanaya dawladda Itoobiya ayadoo shacabka walaac ay ka muujinayaan ay ku sheegeen in halka dhismaha halkaas ka soconaya ay dhisi doonaan dadka rayidka ay dhaqaalahooda ka ururin doonaan gabi ahaanna barnaamijka Muuse ka socda ee la qaadaco ayadoo hawshaasi lagu guuleystay madaxweynaha hore Soomaaliland Daahir Riyaalo halkaas tagayna si weyn halkaas looga soo cayrsaday una hargeysto orod ku tagay Soomaaliland waxay shaacisay doorashooyinkeeda waqtiga ay dhacayaan November 13 ayaa loo balansan yahay ayadoo Muuse Biixi Cabdi marka inuu musharaxay lagu wado Itoobiya ay wadato hawsha waqooyiga ma saarana SSC iyo Soomaaliland hanjabaadaha wada Soomaaliland ciidamadu si weyn iskaga soo dhawaanayaan barnaamijka shir gareeyo meel fogna gaarsiiyay inta barnaamijka lamida ku kulmi doono sida ay nabadgelyo